nabiga calayhi salaam gabdhaha walaala ma dhalan laakiin waxaa jira gabdha ay naas dhan nuugina jiray waxa la masacdii dadkii nuuji jirtay Soomaa Shayma bint al-Haritha nabiga la nuugto nabiga ma ogso dagaalkii oo bani Sacd markii la galay alla soo qabta qafaash dadka la qafaashay ay gashay Shayma wala soo qafaalay markii nabiga aragtay wuxuu ku tiri yaa rasuulullah inni ukhtaka min ar-radaa'a rasuulku oo naas isla nuugtay walaasha ay aniga naas isla nuugteen nabiga waa yaabay gabadhii dadka la soo qafaasho oo maxabiista ahaa gabar walaashiisa ku jirtay nabiga markaas wuxuu yiri wama calaamatik maxay tuu yiri calaamada ayna walaalka ah maxaa ku cadeynaysaa markaas waxay tiri dhabarkaaga fiiri tiri qaniinshada aniga oo yar oo isla cayaareyno naas markii isla nuugayeen dhabarka ka qaniina kugu yeelay tiri nabiga waxa xasuusay qaniinadu arkay nabiga waa isceli waayay markuu ugu horeysay wuxuu qabtay go'isoo firaash wuxuu dhulka u firaash walaashiisa wuxuu yiri kaalay horta dhulka ka kacuur go'ayga ku firay markaas uu offer siiyay wuxuu u bandhigay adigna walaasha maxasiisa walaasha ninkii qabaada ya